wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Togdheer ayaa si rasmi ah u furtay tartan ciyaareed kubadda cagta oo ay ku tartamayaan kooxaha heerka koobaad ee gobolka Togdheer. tartan ciyaareedkan oo loogu magac daray maalinta qaran ee 18 May ayaa waxa gacan weyn ka geystay maayirka degmada Burco Maxamed Muraad oo inta badan taageera barnaamijyada dhalinyarada ee caynkan oo kale ah. daawashada koobkan ayaa waxa si weyn uga soo xaadiray bulshada ehelka oo daawashada iyo la socodka ciyaaraha. barasaabka xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Ubaxle iyo duqa degmada Burco Maxamed Muraad ayaa u mahad celiyay wasaaradda ciyaaraha. duqa degmada waana aad ugu mahadnaqayo intii maalgelinta uu ku sameeyay kooxahan todobada ah ee shaqo mid ay yihiin dawli iyo labada shirkadood ee madaxa bannaan soo dhiirigeliyay oo dadaal sameeyay inay tartanka u qabsoomo. maanta halkan waxaan ku fureynaa koob aan ugu talagalnay munaasabadda 18 May oo maanta bishu ay 5 tahay bilaabmaya. koobkana insha Allah la kala qaadi doono labada kooxood ugu dambeeyay isu soo haraa 18 May. sidwaha wasaaradda ciyaaraha iyo Jamaal oo ku hadlayay saraakiisha wasaaradda ayaa ka warbixiyay ujeedada ciyaarahan. halkan ka furmaya tartan ballaaran oo iskaga hor imanayaan 7 naadi tartankaas oo loogu magac daray koobkiisa 18 May. waxaanu halkan ka bilaabaynaa ciyaartii koobkii 18 May. waxaan naga maalgeliyay koobka gudoomiyaha deegaanka. runtii koobkan waxaan ugu talagalay inuu la soo gabagabeeyo maalinta ugu dambaysa ee May in ciyaarta final ku dhacdo. waxaan runtii jecelahay halkan ammaan iyo bogaadin inaan ugu soo jeediyo maayirka degmada Burco Maxamed Muraad oo door muhiim kaga jira markastana hormuuda horumarinta dhalinyarada isboortiga. xubno kamid ah ururka Waayarag iyo mas'uuliyiinta dhiirigeliya ciyaartoyda ama ay ku ciyaaraan magacooda ayaguna soo dhaweeyay tartankan. intii sidwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo xilka la wareegay ayaa waxa kor u soo kacay yidadiiladii iyo himigii sportis ee gobolka Togdheer. ciyaarta furitaanka ee tartankan 18 May oo ay ku kulmeen kooxaha ku kala ciyaarayay magaca dawladda hoose iyo asluubta ayaa guushu hal iyo bar ku raacday kooxda asluubta. Cabsaaq Farax Abdullaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.